Goobaha miyiga ee waqooyiga dalka Itoobiya oo mar ay dagaallo culus ka dhaceen, weli waxaa dadweynaha halis ku haya haraaga hubka waxyaabaha aan qarxin, taasoo khatar weyn ku ah dadka rayidka. Itoobiya waxaa ka dhacay dagaallo sokeeye oo baahsan sanadkii 2020 markii ay ciidamada dowladda oo ay taageerayaan kuwa Ereteriya isku dhaceen ciidamada qowmiyadda Tigreega. Dagaalkaas waxaa lagu qiyaasay in ay ku dhinteen ku dhawaad ilaa 500,000 oo qof. Dagaallo kale ayaa hadda ka socda gobolka Amxaarada halkaas oo ciidamada dowladda ay kula dagaalamayaan dagaalyahanada qowmiyadda Amxaarada ee loo yaqaan Fano. There have been shelling, shooting, which left behind explosive remnants of war in the Waxaa la areas. tacaalnay ilaa 243 dhibane oo ka badbaaday haraaga hubka, laakiin tani waa bilow uun. Dad badan ayaa naga fog oo aanan gaarin. Qiyaastii 80% dhibanayaasha aan caawinay waa carruur, ayuu yiri Finka Takenya Bikri Sami oo maamulo barnaamijka ICRC ee baxnaaninta dhibanayaasha waxyaabaha qarxa ee dalka Itoobiya. Barnaamijka ICRC wuxuu ku caawiyay dadka ay waxyeellada soo gaartay qalabka dhaqaaqa sida lagu macmala oo la siiyay dadka ku naafoobay haraaga waxyaabaha qarxa iyo adeegyada baxnaaninta dadka qaba naafonimada, gaar ahaan meelaha dagaaladu ay saameeyeen. Malaayiin qof ayaa ku nool kuna shaqeeya meelaha ay ku hareeraysan yihiin hub aan qarxin, taas oo caqabad ku ah nolol maalmeedka dadka shacabka ah, goobaha waxbarashada iyo helitaanka ilo muhiim ah sida dhulka beeraha iyo biyaha. Waxa ay la dhibaatoonaysaa wixii dhacay, ayuu yiri Tabiir Jibro Johannes oo gabadhiisa 8 jir ah ku dhaawacantay aalad aan qarxin. بدأن بأساسيره يوثق بصحيح نارا خزفتون قصة قرأتني وادخل كين يوعيو خزفت السنتر طلع حتى أقرأ إيشان تحزايا Marka ay wareegayso ma fogaan karto sababtoo ah waxay ka baqaysaa qarax kale. Mar walba waxaan ka walwalnaa in mid ka mid ah carruurtu ay soo qaadato ama ay ku istaagto wax khatar ah. Haraadiga hubka ee weli yaala dhulka iyo colaadaha daba dheeraaday ayaa sidoo kale sii xumeeyay nolosha dadweynaha, taas oo horseeday cunno yari ka jirta deegaanay hore ay ugu jirtay nafaqo xumo, gaar ahaan hooyooyinka iyo carruurta yaryar. ICRC iyo ururka Laanqeyrta Cas ee Itoobiya waxay la shaqeeyaan bulshooyinka maxalliga ah si ay u kordhiyaan wacyiga oo ay u yareeyaan khataraha. Laakiin waxaan ku adkaysanaynaa baahida degdega ah ee dadaallada nadiifinta. ICRC waxay ugu baaqaysaa mas'uuliyiinta iyo dhinacyada caalamiga in mudnaanta la siiyo ka saaridda haraaga hubka aan qarxin oo ah hawl adag, gaar ahaan goobaha ay colaaduhu ka socdaan. Badbaadinta dadka rayidka ah ee dhibaatada aan loo kala soocin ee hubka waa in loo arkaa mudnaanta koowaad, ayay sheegtay hay'adda Laanqeyrta Cas ee ICRC.